muxuu Robben Amorim ka yiri guuldaradii kooxdiisa ka soo gaartay Arsenal? Manchester United ayaa xil ciyaareedkan Premier League 2025-2026 ku bilaabatay guuldaro 1-0 ah oo ay Arsenal ku gaarsiisay Old Trafford. Hase yeeshee tababare Robben Amorim ayaa muujiyay kalsooni weyn kadib ciyaarta. Amorim ayaa sheegay in kooxdiisu ay ahayd tan ugu fiican kulanka dhanka firfircoonida iyo awoodda ciyaarta, inkastoo ay ku fashilmeen inay dhaliyaan goolal. Waxaan u baahannahay inaan noqono kuwo xoogan. Sharciga ma bedelayno, waa inaan la qabsano. Aniga ahaan maanta anaga ayaa fiicnan, ayuu yiri macalinka. Wuxuu sii raaciyay, waxaan haysanaa ciyaartooy awood u leh inay guuleystaan kulan kasta oo Premier League ah. Waa inaan diiradda saarno ciyaaraha oo aan iska ilowno buuqa banaanka. Ma aha muhiim cidda ciyaaraysa. Waxaan rabnaa inaan guuleysano. Amorim ayaa weli aaminsan in Red Devils ay awood u leeyihiin inay si adag ula tartamaan kooxaha waaweyn xil ciyaareedkan. Inkasta oo United ay abuurtay fursado cadcad oo ay ka mid ahaayeen laadkii birta ku dhacay ee Patrick Dorgu iyo isku dayo badan oo Matheus Cunha ah, haddana goolka Ricardo Calafiori ayaa ahaa midkii lagu kalbaxay. dhinaca kalena ciyaaryahan Barcelona ah oo digniin u diray Hans Flick kadib imaatinka Marcus Rashford. Xidig ka tirsan Barcelona ayaa si cad digniin ugu diray tababare Hans Flick, isaga oo sheegay inuusan aqbalaynin inuu ciyaaryahan labaad noqdo kadib markii kooxda lagu soo daray Marcus Rashford oo amaah uga yimid Manchester United. Rashford ayaa xil ciyaareedkan amaah ku biiray kooxda Catalonia, isaga oo heshiiskiisu uu la socdo ikhtiyaar lagu iibsan karo xagaaga dambe qiimo dhan 30.3 milyan oo pound. Weeraryahanka Ingiriiska ah oo qaybtii labaad ee xil ciyaareedkii hore amaah kula joogay Aston Villa ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee La Liga u saftay Barca toddobaadkan, isagoo bedel ku soo galay kulankii ay 3-0 kaga badiyeen Mallorca. Kulankaas ayuu Flick sidoo kale qaybtii labaad garoonka keenay Dani Olmo, kaas oo hadda dareensan in imaatinka Rashford uu keeni karo tartan adag oo boosaska weerarka ah. Olmo ayaa ku adkaystay in xil ciyaareedkan uu doonayo inuu noqdo ciyaaryahan hogaamiye kooxda, gaar ahaan maadaama Champions League ay tahay ujeedka ugu weyn ee Barcelona. Wuxuu xusay inuusan aqbali doonin door hoose, balse uu doonayo inuu noqdo tiir muhiim ah oo garoonka iyo banaankiisaba ah. Qodobadaasna waxay qayb ka ahaayeen barnaamijkii bandhigii ciyaaraha oo aan galabteedii kugu soo diyaariyay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.